waxaa jiray ilaa ay hadda aan la yaabo oo fanaaniinta waqtigaa soo baxday ka mid ahaa waxaa la oran jiray Cabdalla hanuuniye de fanaan weyn buu noqday markii dambe waay galabaan anoo ordayaan meel kulanay waay markaasuu wuxuu yiri xageed ogeysay Axmedow ma habeen ma dal fariisaneen marka gaari taxi ay taagnaa soo tahay waxaan ku yiri isug wax yar gaariga waxa ay saaray alaab fara badan waay alaabtii waan gaariga kala soo degay taxirihiiba waxa ingeel buu yahaa bishii baan fasaxay waxaan ku yiri Cabdalla wad anoo raran markaas alaabtii gaariga qaadayo gurigiisii baan u fariisanay waxaan ku yiri maxaa cusub aad soo saartay waayahan waay waniyo mid baa kula jeclaada ku dhiibo bi ya oo hayskala kay weynaan وانا waxaan weligeen noloshayda haddaan iska ka weynaa miyaan ku soo raaci lahaa khatar iska dhigi buku ha way ili bar heesti waan ka xafiday aan ka xasuustaa bayd wadada weliga ogo wareeg dheer soo marta waqtiga way lumin ogtee wadiiqadan bal iska raac haddaad weydana adduun حوال والنا إله وحصو ودا سوغو وسمير واياها وسمير واي هسا سويدي ومنها يسيقى لها مياه منها العطكة يبوحوا لسيارها واي والله عبد السلام عندها يوحا كتبت علمه سابت متغانا وحا أنكو فكري يا واحد مدعروك سيدو كاردي أنا وحا أنكو فكري adduun inaan helo lacag badan inaan helo inaan wax sameeyo xagee u martaa wixii albaabkee laga galaa xagee mataqaanaa yaa la weydiiyaa ka bilowdaa magaranaysa lacag ban u waalwaalanay inaan helo ogow hadda waay ilaahay markuu dee mataqaanaa wax kula raadinayo waa wax weyn musuutay galabta ilaahay ninkaa isku keenay ee aanu gurigiisii fariisanay ee sidaa sheekadeedii u dhacday ee heestaa uu ii dhiibay oo aan beedka xafiday indhahayga ilma ka soo dushay koow wixii aan raadinayna galabtii ay ugu dambeysay waa ka haray waayo intaa maskaxdeedu way soo rogaysay waxaan ka fakarayay waxay ahayd ma khaldanayd markaad waxaan saa u raadinaysay mase Axmed waa saxmay adiga ku xujay ma anigaas leh ana ismu hay aniga hay dambirihiiba ku xujay birihiiba xujay way afku ma go birihiiba xujay tabada waxaan ogaaday ama orod wax ku raadi hay ma garanaysaa ama wax khiyaamo wax ku raadi ama wax dhac ama wax boog wax dad samee waxa kani waa kullu shay maktub min Allah wax ilaahay ku qoray marka wax ilaahay ku qoray waa ku iimaanay wadariisa marka halka ay ku sugmiyaa ها سوى يردي تو يرى وحوليه هاي وحو صوّدنا إله هوالوالنا إله وحو صوّدنا سجو وصل من روايها وصل معناها واسعني صعدك قالوا له إذا نقول هذا ما قال هاي قالوا له إذا نقول حوجا سلاء وحباط بهاتها حاجة وحكذا لسه العقبة مبهرة هاي مركب مال أنا مركب كنا قاعدين مقرنين يعني قاري سكسر نحفوري قالوا تلفون هلو ولا أحمد حقيت شوكتا هل كانت شوكا نيكا وأنا صاحبك إلا سود أرضو إيمو واي حقيت شوكتا لاقي ترتين ماشي بنتي ماشي وحن كلا خرمي وحا حوالوان الإله وحصوّد سوقه وصمرين وهي أصمر لك رحمه هاي واي وحي عن هذه اللي marka meeshii saa u soo raacay waan helay iyo wax ka badan magaranaysa marka telefoon soo dhaca kolay noqotona wixii alla ku qoray waa lagu yeeray waka Axmedow walaal maxaa ugu weynaa Soomaaliya aad ku tabtaa waliba qofka caanka sidaadoo kale markuu wadanka ka baxo ee dhulaan laga garinayo uu tago maxaa ugu weynaa aad ku miskarayso Soomaaliya riwaayadihii aanu gobolada iyo degmooyinka dalka u qaadi jirnay aniga iyo Hibe Maxamed iyo groupkayagii waa bari ya aanu riwaayadda markaanu habeenkii dadka u dhigno isla habeennimadii ayaanu magaalada ka bixinay isla habeenkaba marka waa guureynaa socod habeen baan ku jirnaa
socodka daroolku markuu daalo wuxuu leeyahay walaal waan daaray gaariga wadadu ka saaraya meel cilla irsilaa ya yaanu soo xajinay gaarigu lacagtii way buuxdaa lacagtii baa saaran waddanka dhan waa la idinka garanayaa waddanka dhan waa la garanaya laakiin ama annaga ha noqoto annagu fanaaniintiya ama gaari kale shacabku saaraya ha noqoto meel allaale iyo meeshii qofka Soomaaliga uu doono yu gaariga wadada intuu ka saaro ciidiisu markay u saxanay alla mooyaan iyo bahal mooyaan qof Soomaaliya wax ku yeelaya ama ku dilaya ama ku dhacaya qalbigayga kuma soo dhicin marka waxyaabaha Soomaaliya ku tago taasa ku ka kala Soomaaliya ku tago waxa kamid ah goorta aan doono anigu ayaa allaale magaalada doonayo aan gaari u raacay xilliga aan baxayo ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto waxay u badan tahay inaan keligay ahay ilaa magaalada kale aan ka tago anigoo cajalad tan wareegtaa ii saaran tahay yaa ku tagi jiray meeshii waxaan aad u jeclaa heesaha maxamed salaam qaado mid kamid oo yiraahdo baldad yo adduunka labadii isdoorta iyaga isdilaayo isu daacad maaha waxay cajiiba way iyo aw dhigaleba ila bubayo sara iyo ordo aba ilkaas heesta qaadayo gaariga keligii isteeri ka taagay ma asalka ba hurdadaanigoon ku arag kuma uunsadeen sidaaranka allah igada hawluhu iyo dadkii lama tiri karo waxyaabaha mar walba nagu soo dhaca oo aan ku xasuusano Soomaaliya waxaan ku xasuusanaa Soomaaliya oo kale sida aan isku ahayn dhalinyarada Soomaalida waxaan garanayaa baydhabo tagay ninba waxaan ku yiri wariyo waxaan doonayaa caano way marka waa maalintii igu horeysay makhaayad baydhabo ku taalo wax ka dalbado markaas wuxuu leeyahay wangal ha caano raba caano way wangal wariyo caano raba way wangal maxay noqonaysaa markaa caano geel baa rabtaa way marka isagu waa ifahmaya laakiin anigu rabaa inuu maskaxda wax ku reebo markuu arkay inaan afariisanahay yuu ta qoslay wuxuu yiri macaana geel baa rabtaa sallallahu baa rabtaa markaas aan caana geelisi axmedow fanka hore wadu soo joogtay kan dambena waa ilaahay mahadiye imika wadu joogtaa bal intan dambe sidan wax loo wado ku qanacsanta may way kuma qanacsani waayo ilaahay rabbiga subhanahu wa ta'ala horta isaga wax toosiyo wax hagaajiya waxa lumay aqligii wax wada jiray way fanka iyo suugaanta aqli baa wada jiray dawladda Soomaaliya aqli baa wada jiray way culimada Soomaalida aqli baa wada jiray warun bulshada Soomaalida aqli baa wada jiray aqligii wada jiray ee ahaa qofku inuu wax qaban karo isagoo naftiisa dadkana wax u qaban karo oo wax wanaagsan qaban karo ayaa inaga maqan meel aad lama yaqaan ilaahay hayna socodiyo way marka halka wixii kala mareen ayuu fankiina maray baad leedahay ma kala harto way laakiin soo tii axmed loo jeeray raqba waa ku rageediyo saban waliba ragiisu leeyahay meel loo karay waxa iyaga kuwan ku qanacsan yihiin bay wataan anigu waxaan weligay aqliyan ku fikraa waxa weeye qof kasta oo noolaa oo Soomaaliya isagu haddaanu aanay ka horeyn wax soo celiya had soo celiya هاي waxa uu ku socdaa waxa weeye laguma dhaame dhaqaaq ama laguma dhaame dhawaaq hadii wada si caalamku wada waliyo noqday ya هاي caalamku wada madaxweyne noqday wada siyaasi buu noqday Soomaaliyeed wada sheekh bay noqotay markaad gasho mataqaana YouTube-ka هاي ما قاليسا وذا عاقل بين نقطتين بريغه hore way kala lahayd Soomaa حد kala lahayd in baa adigu lahaydo aan anigu soo gudbi karin sababtu waa maxay ninka ragga Soomaaliga baa wuxuu aaminsanaa war inta ninkan Ilaahay siiyay adigu ma lihid ma bahaysid هاي marka waa anigoo iska dhiga Axmed Cali Cigaal noqon karo imka miya haade way ama siiba هاي marka wixii talo sida noqon lahaa